saraakiisha ugu sareysa ciidamada booliska Somaliland oo shir jiraad ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa wax ay faahfaahin ay ka bixiyeen howlgallada ay ciidamada booliska Somaliland xalay ay ku raacdayeen isla markaana ay ku soo qabteen gaari xamuul ah oo ay lahayd shirkadda ganacsiga ee Omar oo xalay fiidkii burcad hubeysan ay ka dhaceen bartamaha magaalada Hargeysa waxaana saraakiisha ciidamada booliska Somaliland oo ugu horeeyay taliyaha guud ee ciidamada booliska Somaliland Sarreeye Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan iyo ku-xigeenkiisa guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle ay faahfaahin ay ka bixiyeen qaabka ay ciidamada howlgalkaasi u galeen iyo sida ay gacanta ugu soo dhigeen gaarigaas xamuulka ee burcadka hubeysan ay ka afduubteen bartamaha magaalada Hargeysa waxaana taliye Cabdillaahi Fadal Iimaan uu sheegay inay ciidanka boolisku ay gacanta ku soo dhigeen gaarigaasi iyo waliba burcadkii afduubatay isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay maxkamadu la soo hortaagi doonaan sida ka warqabtaan ciidanka booliisku had iyo jeer isagoo gudanaya waajibaadkiisa qaran ee ilaalinta amniga gudaha wuxuu iskaga jiraa heegan hadiyo habeen waxa caawa dhacday abaaro 7:00 saacadu markay ahayd ayaa geerish ku yaala agagaarka hoteelka gaari xamuula oo waaraada oo lambarkiisu yahay 17,560 oo shirkadda Omar leedahay una rarnaa sidayna taarka garaydka lagu laabo ayaa koox burcada oo gaari nooha wata ay gaarigaas oo markaa Krishboog la joogo daroolkuna ka degay halka ay dhaawac u geysteen Krishboogii gaariga ka haysteen xamuulka ciidanka booliisku howlgal ballaaran ayuu galay iyagoo ka duulaya burcadaasi halkii ay gaariga ula jihada ula kaceen ciidanka booliiska ee gobolka Daadmareed Oodweyne ciidamada booliiska ee Cadaadley ciidamada booliiska ee Samawanaag waxaanu gulinay heegan inay jidadka galaan oo howlgalka xagga kor kaga yimaadaan halkana waxa ka baxay ciidan booliisa iyo saraakiil hogaaminaysa gaadiid nasiib wanaag kooxda burcada iyo ciidanka booliisku waxay iska heleen meel ilaa 10 kilomitir magaalada Badar Wanaag koonfur ka xigta halkaas waxay sameeyeen kooxda burcadii waxooga iska caabina hase yeeshee anigoo Ilaahay u mahad celiyay ciidanka booliisku wuxuu ku guuleystay inay gaariga waaraadka ahaa ee rannaa iyo nooha ay wateen burcaduba ay gacanta ku dhigaan waa habeen waa garanaysaan howlgal habeen la galay xaaladiisa wax dhibaatana ilaa hadda lama sheegin ama qasaara labadii baabuurna ciidanka booliiska gacanta ku haya dhinaca kale mid kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Omar ee xalay gaariga xamuulka ay burcadka hubeysan ay ka dhaceen ayaa dhankooda waxa ay ciidamada booliiska uga mahad celiyeen qaabka ay howlgalkaasi u galeen iyo sida ay gacanta dib ugu soo celiyeen gaarigooda xamuulka ee xalay laga dhacay waxa weeyaan Maxamed Cali Maxmed waxaan ahay maareeyaha shirkadda Omar International waxa dhacday in galabta abaara 7:00 in baabuur weyn oo xamuula oo nambarkiisu yahay 17,560 rag hubeysan ka afduubeen magaalada Hargeysa markii dhacdadaasi dhacday markiiba waxaan wargelinay booliiska iyo ciidanka nabadgelyada howlgal degdeg ah oo ay qaadeen waxay gacanta ku soo dhigeen gaarigii la afduubay taliyaha ciidanka booliiska taliye xigeenka saraakiisha hawsha gashay degdega u gashay sida wanaagsan u gashay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa howlgal ciidan booliis oo si fiican loo fuliyay si fiican loogu howlgalay isla saacado gudahood ayay hawshaasi ku soo dhamaatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ciidanka booliiska Cabdi Fataax Xasan Xuseen Xarad Kalson TV Hargeysa.